السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شرف الأصل على كسر هذا البرنامج كي نولا شربتها كنا نولا شربتها إن خياله كنا لان ولقى الرطادن هو أقولاني وذوقتين تتكين الدبيدها كنا البضنا خياله اللي قلنا ليه وجورا دلك وقتها هالك سنتها مركان 8 سنة 14 سنة على صوم مقنا عرورتي ويناني وعلى صوم نقريا مركي ميش هذا بالله هو مركا ولقى نورشة كنا لانين لكن معنى هذا ما عرورتي أنا ماشان لا كحيلين أنا كحي دين تودي دقن كودي ضد كودي دل كودي لصوبرة ولي هو واجب شيخ أم حفظه الله واجب وكذي كل يعني وقرع سنة ولا لا شرفتنا إن وحن دعوة شيخنا الشيخ سعيد راجع حفظه الله أو هذا كور حتى دوكسي يعني يقوم هذه لندن أو أرانا يا ماشي اللي هذا كندا إلهي ذي المجية ماشي قربها إلهي ذي المجية آمين ده رنتي أنا آمين ليه ماشان مال وحلوها يا ملا دين مطال دقن ميال وحميال لكن مدبر ربعين متقنا يرى الصحة ورنتي حتى نيروبي علوم بدن أوتوين أرنتها سان كلا سهالي أو دينتان waxay u baahan tahay in la soo dhoofiyo diinta waxay u baahan tahay Mareykan Europe Australia Canada in la keeno oo Allah subhanahu wa ta'ala aydiisa la raacay tansurullaha yansurkum diinta Ilaahay haddaad u gargaartaan Ilaahay subhanahu wa idin gargaaraya waad ogtiin Mucaad bin Jabal markuu Nabi sallallahu alayhi wasallam u diray wuxuu u diray diina ahayd inuu faafiyo marka wallahi waa ka xumahay culimada badana inay mataqaana ayaga meeshan ka guuraan because meesha waa meel stress badan waa meel iska dhib badan waa meel caruurta lagu hayn karin inay mataqaana iska guuraan oo meesha dacwadina ay dayacaan runtii aad baan ugu xumahay markaan waxaa kale oo ka sii daran mustaqbalka caruurtaas markay weynaadaan waa soo noqonayaan ama Canada ku soo noqdeen ama Mareykan ama Europe meesha aabahood ka bilaabayeen waa goorma waa 30 sano ka bacdi waa markii mataqaana halkaas ay ku soo weynaadaan ayagoo rag diin laho la soo tababaray ma sha Allah laakiin waxay ka bilaabaan meesha aabahood ka bilaabay laakiin ani midaan rabo oo culimada badan ku soo boori Nairobi waxa weeye maxaadiida iyo dadka halka jooga inaan la idin meeshan u soo kicina soo Sheekh Saciid Raagi sheegay oo meeshan meel ay diinta la dhaqan yaala oo qof bin aadam loo soo dhoofiyo maaha in laga soo dhaadhiciyo waa arrin aan ku waafaqsanahay laakiin waxa weeye meesha dad baa degan oo ama aniga saan caruurtayda ugu rartay ama adi ay kugu suurtagashaan ugu suurtagelaynin dadkaas ayaga soo diin iyo uma baahno dhaqan uma baahno لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم متكين الله سبحانه وتعالى نب أمرهم إلا أود واحد السجن نفتي سنة جعليه ولا الكيس كلا جعل هذا صومالي ومريكان يوروبي يستروني واد دقين ما نكسو سعودان وعين وسوس عني وحاوي ماشي وحال وايسا الحمد لله إن بتقلي إيو متقنا بيل إيو العقد بدل متعلا بيل إيو وحال وايسا عافي ما دي وحبرشو laakiin meeshii dadkii waa ku halaabeen oo de mataqaana dhaqankii baa ka badan dadkaas ayaga marka dhaqankoodii in loo sugo oo loo wanaajiyo soo ma haboono madaaris in loo dhiso oo dugsiyaal loo dhiso oo bata iskuulo loo dhiso oo mataqaana iskuul islaami ah loogu baahan yahay loo dhiso soo lama baahno hadduu marka sheekh kasta yiraahdo ani caruurtaydu waa la carariya ay de waxaan dadkan kale waxba igama gelin waa wax aad iyo aad loogu xumaado way runtii oo waliba ka sii daranay wiilkaada markuu weynaado ama wiilkayda weynaado inay soo noqonayaan caruurna waxa xaqiiq ah oo indhaha la iska tiri karin caruurta oo sheekh kasta la cararay ama Egypt ha geeya ama ha geeya mataqaana carabaha ama ha geeya Soomaali ama Kenya ha geeya waxa xaqiiqa caruurtaas markay weynaado inay soo noqon doonaan markay soo noqdaan ma hal marka walaalaha sharafta leh wiilkaadi malaha masaajid uma sii diyaarinin oo madaaris uma sii diyaarinin oo iskuulo islaami uma sii diyaarinin wiilka markuu soo noqdo caruur buu ku dhalayaa caruurtaas maxay noqon doonaan marka waxa weeye aniga runtii waa ku raacsana Sheekh Saciid Raagi inuu dadka meeshan u amaanin anigaan in la hadlaya 25 sano jooga markaan soo galay baan ka dhaartay wax dhiigaydi dhacaankayda meesha inaan keenin laakiin nasiib daran in baan nahay aniga is celin waayay oo de mataqaana xaas la yimid marka waxa weeye meeshan ay dad u soo guuraan maaha laakiin waxyaalaha indhaha la iska tiri karin waxa weeye wiilkaan la carartay ama gabadhaan la carartay qasab waa kuwii soo noqdo marka walaalaha sharafta leh ani waxaan ku buuriyaa culimada Nairobi aan kala soo hadlay culimada de lacag badan ma hayaan
dadka lacagta haya waxa weeye waa dadka businessmenka ama business womenka dadkaas ayagaa fiican in masaa'idaha laga istaago oo la yidhaahdo war ma rabtaa sadaqatul jaariya lacag ma rabtaa dheh horta marka hore lacag ma rabtaa adigu lacag ma rabtaa ileen bini aadam lacag baa laga raacaya lacagta waxaadaad rabtid walaalkay waxay ku jirtaa maraykanka oo sees ugu helaysaa meelaad adigan lacag ka helaysa diintaada u gargaaraysa dadkaada u gargaaraysa adigan mataqaana you feel good markaad shaqadaas suubisadaan ku haya oo dacwo fii sabiilillaahi oo maxay tahay lacag baad ilaahay ku sii Canada tag iskuul America tag iskuul islaami soo furo dadka halka degan iskuuladii publica waa lagu khasaaray dadka Soomaalida halkan joogto waa masaakiin oo iskuul islaami ma furan karaan culimada Nairobi joogto waxaan kala soo hadlay dadkaas tujaarta waxaad ku dhaadaan sidii dahabshiil ee Hormuud iyo ragga lacagta leh war Maraykanka tag oo iskuul islaami soo furto diinta fidiya sida Mucaad bin Jabal radiyallahu anhu nabi sallallahu alayhi wasallam dacwo bisu la furay oo la diray diinteena walaalaha sharafta leh inta beecsharo ku fidday ayaa badan marka waxaa la rabaa culimadeena sharafta leh oo aad meesha noo saaro xushmeynayna waxa weeye dacwadii dibidda waa laga jiifaa kuwii halka joogay iska badaaba oo culimo badan oo la soo hadlay iska badaaba kuwii lagu xisaabtami jiray oo English speaker ahaa oo maasha Allah oo diintan meel kasta gaarin jiray waxay ku soo gabaabteen muxaadaro kaliya meeshaana waxaa la rabaa sidii nimankan missionaries oo gaalada oo tagaya Afrika iskuulo gaala ay soo dhisaan oo iskuul ay soo dhisaan oo waxay soo dhisaan mataqaana maraakiis ay soo dhisaan si ummadaasi hadhow dam mustaqbalkooda loo bedelo tii ideed adi maxaa ku diidi waay tii ideed maxaa anay diid adi maxaa ku diidi waay runtii walaalaha sharafta leh waxaan rabaa qof kastoo Soomaali video-gan daawad horta kow sheekh kastoo taqaana gaarsiin علماء بدن كل يعني والله هذا وكوي لما مدها مدرسة إذا حتى الشيخ بشير صلاة حتى مدرسة يقيم علماء بدن والله هذا لكن وعلى الرباه وروح أنا دين تاني علماء بسم الله وها إسكالة تدوينها صومالي ودنا إسكالة إيو مسلمين تا إسكالة دين تان وإلا النحو وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ماشان محاضرة بسلام باني وحلوب بهي مراكز دادك هالكا جوجو يوروبتي مرايكنك جوجو دادك سو الصعود معها انت كسو تجيسو دور حبة وي ودور حبة كسو تكتي هذا غور وعن ذي الشيخ لبعتن تضرب السنة كينيا جوجي ومرك هالكا نوجي ما ده هي كور ماشي وهو يري عنيق هذا وهم تقانا ولا له وهذا وكل جوجه ومحا وهو يري متقانا عروت وين هذين هذا عروت ميان ده وصار نقضي وايد جوجان لبعتن تضرب السنة صار معنا باسبورك إنجليزي وسوعي باسبوركي أنا نور ما مساعد عايزان سؤاشا كويدينو علماء واوي شقة بدن واقبتين dadkeena Soomaaliya dalkeena Soomaaliya wax badan ay ka qabteen meesha muslimiinta degan yihiin laakiin qurbii diin u dhoofiyaan xoogo waa taqaana waa ka saxdeen wuxuu yiri baasaboorka Ingiriisiga soo celiyay markaan soo celiyay baasaboorku ma baahni wuxuu yiri labuu gudahooda liigu soo celiyay baasaboorki maxaa markaan ku yiri waxa lagu yiri nationality kala haystaan oo maadan sheegin ma taqaana dadkan dambi ba ka gashan oo maadan sheegin anagu iisigaas kuma celina baasaboorka hayso شيخ أسرع وحير عثمان وواحد شيخ سنة واحد كجيران واحد أقعدوا يري we are subject to the queen يعني بقرد مركين أولاد وياه وحير أيضا وشقيناه وشغالونا قف الرجع وكشقينا كرهينا قربها ما تقارنان حاسنا كو جورسنين إن ما تقارنا هالك صومالي تكيا تكتك جيبوتي أرجع يصدق هالك حاس كو جورسو باسبورك كيلها هايست ججاح ماشي هكوسو نقولين كو حق جوانا وسودوفي لكن ولالكي شرفت له هالك عنق مخدشي يدان فينش سكة سودوفين داربت إلهي سبحانه وتعالى كمان مدينا الصومالي تقولي بخاصة العلماء دينا الله كسوه حق دعوة الدبد الله كسوه محاضرة بيسمع بيشان أكشن على بهاي وهذا كيسان دقن كودي يسودوفين وهالك سيجوغارو الصومالي يدلك كينيا دقن كودي نمبا صودوف صدي markaan adiga dhaqankaadina soo dhoofisay maxaa diiday fadlan videogan sheekh soo taqaana gaarsiiya ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'ala xaq allahna waafaji bad baan soo galnay badaan iyada saan ugu tiray 100 sano 200 sano saan ugu diyaar galoween falkeena allahna gaarsiiya walaalaha sharafta le baaga caadigan joogaa naftaada ka fikir dadka qurbaha iska warqabaan inna li nafsika alayka haqqa naftaada xaq bay ku leedahay xaqeeda si bii fiican cab cunto cun cusbo saliid sokor jooji waad ogtiin aan dhigi kar sokor wixii aan qabay alxamdulillah hadda sokorta kaniin waa leegi jooji waxaan ku dardaarmayaa naftaada ka fikir kow
دينت إسلام كان أقرقار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.